السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta Banaadir Star Media qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa war cusub ka soo saaray xiisada diblomaasiyadeed ee haatan u dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya taasi oo ka dhalatay heshiiskii badda ee Addis Ababa wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal xooggan oo haatan ka socdo xadka ay wadaagaan Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa laga helayaa dhaqdhaqaaqyo Itoobiya ka bilowday qayb ka mid ah gobolka Gado taasi oo la xiriirta xiisada diblomaasiyadeed ee kala dhaxaysa Soomaaliya kana dhalatay heshiiskii badda iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku yeeshay shir degdeg ah oo looga hadlayay amniga guud iyo difaaca dalka maadaama ay soo korortay xiisad u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya qodobadaasi oo faahfaahsanaya goordhow ku maqli doontaan u diyaar garow ayagoo faahfaahsan oo aad goordhow maqashaan insha Allah saaxiibayaal aan ku bilaabay sidoo dhacwarkin aad ku wada maqlayseen xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa war cusub ka soo saaray xiisada diblomaasiyadeed ee haatan u dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya taasi oo ka dhalatay heshiiskii badda ee Addis Ababa ka dhacay Antonio Guterres ayaa ku buuriyay labada wadan inay istajiyaan isla markaana ay furaan wada hadal lagu qaboojinayo xiisada dhexdooda ah xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay inay lama taabtaan tahay madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya ayna tahay mabaadi'da caalamka iyo derisnimada mar walba waxaana hagaa mabaadi'deena waxay la xiriiraan midnimada iyo madax banaanida dhuleed ee dalalka ay Soomaaliya ku jirto ayuu yiri xogayaha guud ee qaramada midoobay sidoo kale waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay inay wada hadal ku dhamaan doonaan xiisada si looga baaqsado dagaal ka qarxa gobolka waxaan rajeynayaa in wada hadal looga gudbo xaaladda taagan ayuu mar kale ka yiri shir jaraa'id oo ka hadlayay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa xusay in sidoo kale ay muhiim tahay in la dhowro baaqyada kala duwan oo ay hormuudka ka yihiin dalalka Mareykanka, Shiinaha, Midowga Yurub iyo Midowga Afrika iyo Jaamacadda Carabta ay ku aadan in la ixtiraamo madax banaanida dawladda federaalka ee Soomaaliya hadalkan ayaa isagu ku soo aadaya iyadoo cirka isku sii shareerayso xiisada badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya kana dhalatay heshiiskii muranka badan dhaliyay ee ay kala saxiixdeen Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal xooggan oo haatan ka socdo xadka ay wadaagaan Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe dagaalkan oo ka socda deegaanka Ichi ayaa la sheegay inuu u dhaxeeyo laba maleeshiya beeleed kaasi oo geystay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac maleeshiya beeleedkan oo ka soo kala jeeda Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa isku haya muran dhul beereed halkaasi ku yaalay oo u dhaxeeya laba beelood oo kala ah Xawaadle iyo Abgal ilaa iyo inta hadda la xaqiijiyay waxa dagaalkan u dhaxeeya beelahaasi ku geeriyooday ilaa 3 ruux oo labada dhinac ka kala dhintay sidoo kalena waxa weli jira tiro kale oo dhaawacyo ah taasi oo si rasmi ah loo ogeeyeen maadaama weli dagaalkani socdo wararka ayaa intaas ku daraya in labada dhinac ay dagaalamaya ay adeegsanayaan hubab kala duwan taasi oo khasaarahaasi kordhin karta dagaalka ayaa socda wax ka badan hal saac waxaana la sii sheegayaa inuu yahay mid aad u sii xoogeysanaya sidoo kale waxay wararkan helno ay sheegayaan in gurmadyo kala duwan ay labada dhinacba helayaan taasi oo arinta kaga sii dari karta dagaalkana ka dhigi karta mid aad u sii ballaarta faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dhaqdhaqaaqyo ay Itoobiya ka bilowday qaybo ka mid ah gobolka Gado taasi oo la xiriirta xiisada diblomaasiyadeed ee kala dhaxaysa Soomaaliya kana dhalatay heshiiskii badda wararkan helino ayaa sheegaya in ciidamadii ugu badnaa ay saacadihii ugu dambeeyay ka soo gudbeen xadka gobolka Gado la wadaagay Itoobiya kuwaasi oo dhaqdhaqaaqyo hor la ka biloobay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi Gado mid ka mid ah waxgaradka deegaankaasi oo lagu magacaabo Maxamed Aadan Rukow ayaa u sheegay warbaahinta in ciidamadaasi aysan ahayn kuwii hore u joogi jiray gobolka Gado sidoo kale wuxuu tilmaamay in ciidamadani ay aad u qalabaysan yihiin isla markaana ay wataan diyaaradaha helikabtarka ah sida uu hadalkiisa u dhigay ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka culus sidoo kalena wata helicopters waxay ku soo qolqolayaan buundada u dhaxaysa dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliya iyagoo u soo gudbaya dhanka Soomaaliya ayuu hadalkiisa sii raaciyay Ruukow ayaa sidoo kale xusay in ciidamadani ay isku sii fidinayaan gobolka intiisa kale taasi oo cabsi ku beertay dadka deegaanka ee gobolkaasi waxay isku fidiyeen ciidamadani labada wado oo mid ay aado dhinaca luuq ta kalena ay aado geedweyn iyo nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee dawladda ayuu markale yiri sidoo kale waxa uu yiri ciidamadan cusub waa kuwa ka tiro badan kuwii hore u soo gudbi jiray waxaana loo aaneynaya xiisada u dhaxaysa labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliya dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan ay si weyn isku hayaan dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya kadib markii uu qarxay khilaafka labada wadan ka dhashay ee sababay heshiiskii ku dhexmaray Addis Ababa Biixi iyo Abiy Ahmed
ugu dambeyntiina taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku yeeshay shir degdeg ah oo looga hadlayay amniga guud ee difaaca dalka maadaama ay soo korortay xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. kulankan oo si gaar ah u dhexmaray taliyaha ciidanka xoogga dalka Sareeye Gaas Ibraahim Sheekh Muxyidiin iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Sareeye Guuto Sulub Axmed Firin iyo taliyaha Nisa Mahad Salaad ayaa lagu korfeeyay xaaladda soo korodhay. saddexdan taliya ayaa si gaar ah kulankooda diiradda ugu saaray sidii loogu diyaar garoobi lahaa difaaca dalka, waxayna go'aamiyeen in laga hortago damaca Itoobiya ee badda Soomaaliya. war kooban oo ka soo baxay kulankaasi saddex geesoodka ahaa ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliyeed ay ka hortagi doonaan cid kasta oo dhibaato ku ah dalkeena. kulankan si guud waxaa looga hadlay difaaca dalka iyo in meel looga soo wada jeesto cid kasta oo dhibaato ku ah qarannimada Soomaaliya ayaa lagu yiri war ka soo baxay shirkaasi. sidoo kale waxaa kulankan in lagu soo qaaday arrimo ku aadan howlgallada ka socda dalka, gaar ahaan dagaalka adag ee dowladda Soomaaliya ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. taliyaha ciidanka xoogga dalka Sareeye Gaas Ibraahim Sheekh Muxyidiin, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareeye Guuto Sulub Axmed Firin iyo taliyaha Nisa Mahad Salaad ayaa sidoo kale ka shiray amniga guud ee dalka iyo sidii la iskaga kaashan lahaa dagaalka kooxda khawaarijta ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay kulanka. Soomaaliya waxay haatan xiisad xooggan kala dhaxaysa Itoobiya, taasi oo laga cabsi qabo inay isku rogto dagaal maadaama ay arrintani faraha ka sii baxayso xadgudubna ay geysanayso Itoobiya kadib heshiiskii badda ay dhawaan la gashay maamulka Somaliland. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay tan iyo kulan dambeynteena hawada mar kale ku kulmi doono. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. nabadgelyo.